maxaa keenay in mashkiladeennu kuteen iyo isqabsi iyo maalin kasta waa mashkilad cusub, maalin kasta waa muran cusub, waxaynan weli barannin ma aha inaynu dadka ka mashkilad badannahay. anigu waxaan rumaysanahay Soomaaliya dadka inay ka mashkilad yartay, waayo waa dad isku afa, isku diina, isku madhaba, isku caqiida, isku dhaqana, isku afa, isku taariikha, wax walba wadaaga. laakiin waa basharka ka mid ah, basharkuna ma problem waayo. bini aadam kasta Soomaalidu maxay dhahaan baruur quruntay baa maxay baruura qurmisa. haddii dee xeer iyo sharci iyo qaab loo qabta la garan waayo, 5 ninoo qaldan baa 1 ninoo fiican xagga kale u kala rogaya. laakiin waa inuu jiraa 5 tan iyo 1 kan si loogu garnaqi karo. marka ayuha alikhwa, dunidu weligeed baa dhibtu soo maraysay, duni bilaa dhibana hore looma arag. ilaahay baana inugu itixaamay in dunidu dhibtaa yeelato, laakiin sida wax loo xallilaa aan baranno oo ku qanacno. sida wax loo xallilaa waa inaynu iscafinno oo qoladeen tanaasusho oo saa walaalo ku ahaanno, inaynu wada hadallo, isu tanaasullo, meel dhexe isugu nimaadno. labadaaba haddaynu diidno, waxa qudhee bannaani waxa weeyaan maxay? inaynu garnaqsanno. waxa qudhee bannaani waa kaa. amaa inaynu kala tagnaa sharciga kuma bannaana, inaynu isu cadhaysanaanaa sharciga kuma bannaana. waxa xalka ka dhigteen oo dhammi shareecada ilaahay kuma bannaana. shareecada ilaahay waxa ku bannaan imaa cafis imaa islaax. labadaa haddaad weydo, altaxaakumu waalxukm الsharciyi baa bannaan. wax ka dambeeyo oo qof muslima u bannaani ma jiraan. وصلى اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.